waa Muqdisho waxa dabka saaran waa cunno fudud oo borotiin leh loona diyaarinayo ciidanka xoogga ee jooga furmaha dagaalka waxa cunadan si maalinle ah u diyaariya haweenka gobolka Banaadir iyagoo taageero ka helaya marwada koowaad ee qaranka markaana waa furmaha dagaalka oo ciidanka deegaanka iyo kuwa xoogga ay ka wadaan howlgal al-shabaab looga saarayo Hirshabeelle gaar ahaan Shabeellaha Dhexe marka askari furinta jooga uu si fudud u helayo cunno aan karis uga baahneen inta raashinka kale uu wadada ku soo jira soo xaqiiq ma aha in hawooyinka caasimadu ay dagaalka qayb ka yihiin hambalyan idin leeyahay hooyo guuleysta xabadda inta ku wadaan annaguna waa gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Marwa Jawaahir Baarqab oo bilowgii howlgalkan la hadashay RTV waxa ay fariin dhiirigelin ah u direysaa ciidanka wadajirka ah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku faraxsanahay guulaha isdaba jooga ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay geysanayaan si walba oo magaalada dhagarqabayaasha dhibaato uga geystaan midda loo geysanayo iyo jiidaha ka badan madaxweyne waa mahadsantahay go'aankaaga waa go'aan adag ummadda Soomaaliyeedna way wada qaadanayaan oo ka hadlay codka haweenka Soomaaliyeed kan haweenka gobolka iyo kaygaba waa bogaadinaya guulaha isdaba jooga ah ilaa Galmudug iyo Hirshabeelle howlgalaha ka socda Jubbaland oo ka bilaaban doona guud ahaan dalka waa la idinka sifayn doonaa annaguna sidaanan sabaayada iyo sahayda idinkaga dabaysideena hambalyan idin leeyahay hooyo guuleysta xabadda inta ku wadaan annaguna waa idin daba soconaa insha Allah waa mahadsantiin sahayda raashinka ah ee haweenka gobolka Banaadir waxa ay gaartay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaarkood mar dhow laga saaray al-shabaab sida ay leedahay Farxiyo Cali Idow oo xubin ka ah haweenka gobolka Banaadir oo iyadu safar shaqo ku joogta gobolkan Shabeellaha Dhexe waxaan tagnay goobihii cadawga laga safeeyay ee taagnay maalmo ciidanka militariga Soomaaliya annagoo ka soo bilawnay Hirshabeelle meesha ugu xageyso Cali Gaduud Xawaadley Ceel Baraf saakan waxaan ku suganahay degmada Mahadaay annagoo la garab taagan heel iyo hoo maalmo inaan dhiirigelino garab istaagno caanaha iyo biyaha ka daba qaadno waxa dhimanay waa wiilashayna waxaana dilayna waa wiilashayna ayagoo loo adeegsaday maskax qaldan iyo mabda' qaldan oo ahayn mabda' diin waxaan u geynaa sahay raashinki sahay yar oo fudud loogu talagalay furunta markay galaan wiilasha in ay ku qaataan gacmaha oo macmacaana sida timirta sabaayada buskud yar oo la dhaho raawis geeda yar yar oo ayagana burkala kackaca intaasaan diyaarnay marka waxaan rabnaa khayr Allah siiyo inaan maalmo ciidankeena garab taagnaano maskaxda laga xadin midna la qarxin midna noola adeegsan inuu na dilo waxaan ahay hooyo waxaan dhalay wiil waxay la dhashay wiil waxaan u dhaxay wiil mar raba in la isku dhibaateeyo wiilash ee waxaan rabaa inaan banaanka la istaago wixii Ilaahay raali ka yahay waxaan Ilaahay raali ka yahay in laga hortago waxaan u mahad celinayaa si qaas madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo cilaamiyay dagaalkan iyo marwadiisa Sahro oo u qaadatay maalin iyo maalmo badan inay la garab istaagaan wiilasha wax allaala waxay hayaan heel iyo hoo ka gaartay go'aan in dahabkeena aan ka furno wiilasha aan ku daba kacno gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ma hada ka gaartay asagoo na soo diray maalin walba noo taagan inaan tagno furmaha gobolka gobol walba ay noqoto tagno wiilasha la dhiirigeliyo heel iyo hoo ayagoo asagoo kaashanayo madaxda qaranka iyo maamadeena Jawaahir Baarqab oo maalin walba nagu guubaabayso wiilka la dilna anaga dhalnay wiilka la qarxinayna anaga dhalnay mabda'ana laga xaday wiilashu hooyoy la tasho caruurtaada hooyoy la sheekaysa caruurtaada hooyoy ogow waqtigay soo hoydeen caruurtaada intaasay maalmo nagu dhiirigelisaa annagana aan diyaaruna hooyo walbana waxaan leeyahay hooyoy wiilkaaga wuxuu aadayo ogow meeshuu saaxiib ku leeyahay ogow hooyoy baro wiilkaaga la fadhiisa ilmahaaga la sheekay ilmahaaga ogow meeshuu wiilkaaga shaqada ka qabto iyo meeshuu shaqo ka leeyahay howlgalka al-shabaab looga saarayo Shabeellaha Dhexe ayaa iminka ku dhow heer gabagaba ah iyadoo shabaabkuna ay deegaano hor leh isaga baxayaan Maxamed Yaxye Jino RTV Shabeellaha Dhexe